السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي آد أيان إدي سلامي آد أيان إدي كوغو حيسي وحاربا إنا كهالله أرنتا حبيبو وهال إلا بقى كدهو إن حبيبو وهو يكو إتوبان عيالة هيستو وحنكو دا تيكتوغا عاقن كأه إن حبيبو أيو أسكر محلها يقولوا كسو جبين كدب سومالي سيدي ugu falceliyeen rabaa in aniga ka hadlo mowduuciga ma ahan askarta soo jibiyeen waxay u soo jibiyeen inaan ka hadlo dadka taas way wada ogyihiin laakiin Soomaalida oo waxaan ku dhahay intii waxaan ku dhahay qalbiga xumeyd unba xabiibo iskugu tageen subhanallah qaar wanaagsan way jiraan laakiin naaga xabiibo ku goobtay waxaan ku dhahay waa naaga homeless marka idin leeyahay ma ahan dadka jiifa waxa homeless la dhahaa qof kasta oo waxaan ku dhahay bilaa amal ah oo meel iska fadhiyo oo waxna aan baranin oo waxna aan qabsanin ayaa homeless la dhahaa kadib maseer dartiisa waxaan ku dhahay gabadhaas waxaan ku dhahay dhulka u dhigeen qof kasta walaalka ah oo Soomaali ah maanta dhibaato haday ku dhacdo ay dad kala dhibaato ugu imaato waxa lagaaga baahan yahay adiga inaad garab siiso inaad dhahdo qofkan walaalkay waa wanaagsan yahay oo wanaagiisa aad sheegto ma ahan inaa maxaa la dhahayo qofka waxaan ku dhahay jaaniskaas in looga faa'iideysto xabiibo horta waxaan ku dhahay wallahi aad ayaan ugu xumahay xabiibo waa hooyo karti leh waa hooyo waxaan ku dhahay maasha Allah tabarakallah naagnimadeeda iyo waxaan ku dhahay iyo haybadeeda iyo wax kasta soo bandhigta Ilaahay u siyaadiyo naagaha ka masiirsan oo waxaan ku dhahay bilaa amalka ah oo waxaan ku dhahay wax baran waayay waqtigooda maanta fursada ay heleen oo waxaan ku dhahay ceerta ay qaataan inay wax barasho ama maxallaha shaqo uga faa'iideystaan ay ahayd laakiin haday ka faa'iideysan waayeen xabiibo maanta ay ka faa'iideysatay waxaan ku dhahay ciyaalkeeda maasha Allah tabarakallah si wanaagsan ay u korsato ay wax barato oo waxaan ku dhahay TikTok maasha Allah tabarakallah waa aragteen ayada waligeeda qof ku dhigan lama arkin marka in maseer dartiisa wallahi waxyaalaha aan ka maqlay dumarka oo aan la yaabo waxa kamid ah waxay dhaheen hadda ka hore ka codsadeen xabiibo ninkaada natus ayadana way ku adkaysay markaas ay dhaheen weydiida xitaa ninkaada inay natusto war asagoo sii jeeda ku aadi aan dhahnay kulaha kaamirada asagoo sii jeeda xitaa noogu aadi war lugihiisa natusaan dhahnay war xasbi Allah wa ni'mal wakiil markaas inta dhibaatada ku dhicin ay ahayd yani taageero u yihiin waxay ka codsan jireen comment uu soo qori jireen ninkaada yani nutus oo ku caawinaa iyo waxaas ayadana way ka dhici jirtay marka naaga heerkaas ay marayaan qaar soo qoraya ninkii lugihiisa waana la tusay balfiir waxa يعني سبحانك يا عظيم maxay ka faa'iidaa ninka hadii la tuso xitaa soo sii jeeda ama soo jeeda xitaa la tuso wallahi waa yaabay anigu waa yaabay oo Soomaalidu maxaa dhahay subxaana Soomaalidu ma wada ahan dhamaantood dad wanaagsan oo wax barta oo amal laha ku jira maasha Allah tabarakallah laakiin kuwa bila amalka ah inay saas yani dhaqan xumad inta la eg wallahi waa la tacajibay